Mareykanka, Midowga Yurub, Urur Goboleedka IGAD, Midowga Afrika, Turkiga iyo dhammaan dawladaha dariska ah waxa ay si xun u bahdileen Muuse Biixi Cabdi. Ethiopia waxa ay ogaatay maamulka jira Soomaaliya inuusan bixin karin dhul iyo bad. Warbixin rasmi ah oo arintan ku qotonta ayaan muuqaalka nacaaw ku soo koobi doonaa. waxaana Yuusuf Maxamed Axmed haddii aad igu cusubtiin fadlan ku soo biira bartayda Facebook oo ka mid noqdo saaxiibada igu xiran si aad halkan uga ambaqaadaan warar warbixino muuqaalaan had iyo jeer halkan aynu ku soo baahinno. Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha maamulka Somaliland kowdii bishii koowaad ee sanadkan waxa uu magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia Abiy Ahmed uu kula saxiixday heshiis carab badan ay ka dhalatay oo ku qotoma dhinaca badda. waxaana heshiiskaasi uu qeexayay in muddo 30 cisho gudahooda heshiiskaasi is-afgaradka ahaa loo rogo heshiis rasmi ah isla markaana Somaliland ay saami ku yeelato diyaaradda Ethiopian Airways si la mid ahna ay aqoonsi ku hesho Somaliland iyadoo oo xeebaha lagu hayana laga siiyo saldhig iyo dekad ay isticmaalayaan dawladda Ethiopia. heshiiskaasi waxa laga joogaa 6 bilood iyo 6 maalin waxa ku soo baxay Midowga Afrika, Midowga Yurub, Mareykanka, Urur Goboleedka IGAD, Turkiga iyo dhammaan dawladaha dariska oo qadiyadan si adag kaga hadlay. waxa ay sheegeen in Muuse Biixi Cabdi uusan awood u lahayn in uu saxiixo heshiis dhinaca badda ku qotoma lana ilaaliyo madaxbanaanida iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. waxaa jiray qeyladhaantaasi kadib dadaalla ay sameeyeen Midowga Yurub, Midowga Afrika, Mareykanka, Turkiga, Urur Goboleedka IGAD iyo dawladaha dariska soo dhaweynta Soomaaliya iyo Ethiopia. waxaa la sheegay in Muuse Biixi Cabdi aan wax tala ah laga siinin waxaase uu noqday saxiixii aan waxba laga weydiinin qadiyadan. Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Somaliland waxa uusan wax tala ah ku yeelan isla markaana xitaa aan wargelin lagu siinin shirkii toddobaadkii hore ka qabsoomay magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga oo ay yeesheen dawladda federaalka iyo si la mid ah dawladda Ethiopia inkastoo shirkaasi fashil uu ku soo dhamaaday sida ay qeexday wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya. Muuse waxa caddaatay inuusan awood u lahayn bixinta taaka ka mid ah dhulka Soomaaliyeed. Ethiopia wasiir dawladeeda dhinaca dekadaha oo warramay waxa uu sheegay in Soomaaliya kaliya ay kala xaajoonayaan dhinaca heshiiska badda. heshiiska Ethiopia ee saxiixa is-afgaradka ay ka heleen Muuse Biixi Cabdi waxa ay u raadinayaan taageero dhinaca dawladda federaalka oo ay ka doonayaan inay u sharciyeyso. dawladda federaalka ayaa meel adag ka istaagtay qadiyadan waxayse sheegtay in taaka ka mid ah dhulkeenna aysan uga tanaasuleynin Ethiopia oo damaceedu uu yahay in qayb ka mid ah badeenna ay si awood ah ku qabsadaan. waxaase loo arkaa arintaasi mid riya maalmeed ah. Muuse Biixi Cabdi tan iyo markii uu saxiixay heshiiskaasi ma jirin war rasmi ah uu ka helay dawladda Ethiopia oo ku qotoma heshiiskan. dhowr jeer hore madaxda Ethiopia oo fagaarayaal kala duwan iyo qoraallo soo saaray marnaba soo ma hadal qaadin qadiyadda Somaliland ee ay ku iibsanayso qayb ka mid ah badeenna hoggaankeeda oo ay ku doonayaan inay aqoonsi dunida kaga helaan. falanqeeyaasha siyaasadda ayaa qaba in arintan ay ku tahay Muuse Biixi Cabdi bahdil weyn. Midowga Yurub, Mareykanka, Midowga Afrika, Urur Goboleedka IGAD iyo si la mid ah dawladda Turkiga iyo dawladaha dariska la Soomaaliya ayaa samuujiyay sida ay u bahdileen Muuse Biixi Cabdi. ma jirto cid xitaa isku dayday in Muuse ay wax ka weydiiso heshiiskan is-afgaradka ah ee Ethiopia uu la gaaray. falanqeeyaashu waxa ay qabaan in Ethiopia markan xaqiiqada ay dhidhamisay oo ah in maamulka jira Soomaaliya uusan taako ka mid ah dhulka ama badda uusan awood u lahayn inuu bixiyo. Ethiopia markan waxa ay garaacaysaa sagxadda. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hor hadlay golaha shacabkana waxa uu sheegay in Ethiopia dunida ay la wareegayso waxa aanan u soconaynin. ilaa dhamaadka muuqaalkan haddii aad ila soo gaarto waa kaaga mahadcelinayaa. nabadgelyo.